بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان حبناها قلها وزير هذا حلدمان هذا بارلمانكا مدحدة الشركة لها مرتي الشرف تيدا ليلة قيمها بدن عاوهال كان وقتها بدن نقول قاعدتي ماشان قروح بدن بعد ورباهين تيدا مان مرتي الشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلجين إنتي هل كان ساعة بدن عاوة فدي إن كاستو مدالو يفن وسعدي يعني إذا كم هذا علينا كسوق يبقى كات تمادين مسرحا عاوة لقوسي ودي هوشي سيد الله شاقي سنة كان لوقفتي دالحيسكا إيو دوليماتكا عادي أدبان يدين محكوم هذا علينا فرصة عدنا سيسان sida la sheegay wasaaradda warfaafinta oo kaashanaysa hay'adaha Somtex iyo Sata oo ah laba shirkadood oo xirfad ahaan ku taxalluqa dalxiiska duulimaadka waxaanu sanadkan bilaabnay barnaamij cusub ama bandhig sanadle ah oo cusub oo hadda iyo wixii ka dambeeya sanad kasta la dhigi doono looguna talagalay in lagu qiimeeyo laguna dhiirigeliyo dalxiiska iyo isu socodka Soomaalida iyo dadka kale Soomaaliya jecel ee u soo dalxiis taga in lagu qiimeeyo xaaladahooda laguna dhiirigeliyo annagoo u aragnay dalkeenu inuu hadda soo kabtay dalxiisayaal badan ay yimaadaan isla markaana isaga oo muddooyin badan duruufo adag ku soo jiray weli ah meel dalxiis oo la jecel yahay oo sida halka laga sheegay hawa ahaan iyo dabeecad ahaan iyo dadkiisa sida ay u yihiin dad martisoor leh waji furan oo loo soo dalxiiso iyo dhaqan iyo si walba waxaanu u aragnay markaanu fiirinay cadadka ay korayaan duulimaadka iyo diyaaraduhu markaanu aragnay in dalxiisayaal badan oo isugu jira Soomaali qurba joog ka soo noqonaysa iyo dad kale oo ajaaniba ay imaanayaan goboladuna isu socdaan waxaanu aragnay inay maanta fiican tahay inaanu munaasabada qabanno ujeedadaanu kala hayn waxay ahayd kelmadda halkan English ahaan ugu qoran ee ah lada see the other side of Somalia aynu aragno dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya inaanu perception-ka xun ee Soomaaliya laga haysto inay tahay dal dagaalo la degeen inay tahay dal argagixiso joogto inay tahay dal magacyo sidaas hadda inaan ku soo celiyo taariikhda xun ma rabe inay dhamaatay oo uu jiro dhinac kale oo fiican oo Soomaaliya leedahay inaanu muujino ayaanu u qabanay runtii saddexdeeda hay'adaha dawladda oo hay'ado kala badan way nagula jireen wasaaradda duulimaadka oo kala way nagula jirtay sida la sheegay hoggaanka socdaalku waa nagula jiray laakiin laba saddexdeeda hay'adood baa liir u ahayn wixii aan ka filaynay wax shalaab ka weyn baa nooga soo baxay waxaa nooga soo baxay in ummadda Soomaaliyeed runtii iyo dhalinyarada Soomaaliyeed doonayaan the other good side of Somalia labadii maalmoodba sideedda subaxnimo hoolka saha loo qaado ku dhawaad 5,000 oo qof meel laga galo ayaa la waayay dhalinyaro aad u badan oo hadda kiliibkii u dambeeyay aan idhaahdo soo celi hoolka dhan u buuxo oo dadku banaanka taagan yahay ayaa horta nooga soo baxay rabitaan shacab oo aad u badan baa nooga soo baxay dhinaca kalena waxaa nooga soo baxay fursado sidaa la sheegay dad badan ka faa'iideysteen waxaa la bixiyey ilaa 100 tigidh oo gudaha oo kuwa caawa dadka dhalinyarada la kala dooraysiinaya ah oo dalkoo dhan ah sidoo kale waxaa la bixiyey oo aan uga mahad celinaya wasaaradihii bixiyey xaj iyo cimro waxaa la bixiyey shaqo aan ka yarayn 50 marka la isku daro dawladda iyo shirkadaha ayaa la bixiyey iyo hadiyado kale oo lacag ku jirto ayaa la bixiyey
waxay noqotay laba maalmood oo labadii maalmood ee muqdisho oo hadda lagu qabanayay ugu wajiga fiicnayd ayay noqotay labadii maalmood halkaa ku qabanay marka runtii taasina rajo kale ayayna sii gelisay caawa marka halkan waxaanu ugu talagalay 3 arrimood inaanu ku samayno marka u horreysay inaanu u mahad celinno hay'adihii iyo shakhsiyaadkii iyo dhallinyaradii sida volunteerka ku shaqaynayay ee nagala qayb qaatay labada maalmood wixii dhacay qodobka labaadna waxa weeye inaanu safarada gudaha oo marka aan la sheegin specifically qofku meeshu u socdo ay sidan oo kale u kala doortaan waxaan tigidhka u tababaraynayaa oo ugu darayaa inta ka dhiman wiilkii hore u doortay inuu naasaha hablood Hargeysa soo arko ee hadda helay koonfur galbeed hadduu weli danaynayo inuu Somaliland aado tigidhka inta ka dhiman ana ugu daray si uu jeedadiisa iyo fishankiisa u gaaro waxaanu ballan qaadaynaa dhallinyaradaas inaanu qolo kasta meeshay aadayso ka warhayno si sharaf leh u socdaan maamulada ay tagayaan iyo madaxda gobolada ku wargelino meelaha dalkaas ee qurxan si ammaan loo geeyo ay si sharaf leh dalkan dib ugu soo noqdaan iyaga oo si fiican oo raaxo leh oo ka warhayn leh oo amni leh ugu soo maray meelihii ay codsadeen oo wada jira oo sheekaysanaya oo dalxiisayaala ayaanu ballan qaadaynaa qodobka labaad waxaanu u mahad celinaynaa qodobka saddexaadna wuxuu ahaa inaanu abaal marino shirkadaha muqdisho dalka oo dhan maanu gaarsiisnin runtii dalkeenna gobolada oo dhan waxaa ka jira goobo dalxiis oo aad u fiican dalkuna dalxiis buu u samaysan yahay 18 gobol ee dalku uu ka kooban yahay ku dhawaad 15 xeeb bay leeyihiin xeeb ayay leeyihiin marka dal sidaas adduunka waa yaryahay ma jiro goobo dalxiis bay leeyihiin xoolay leeyihiin ugaar bay leeyihiin beeray leeyihiin webiyaal bay leeyihiin dalxiis way marka shirkadaha bilaabay inay muqdisho oo hadda aanu annaku meeshaanu hadda ka samaynay labada casho ahaa waaweyn ee goobo dalxiis lacagtooda ku bixiyay iyadoo dalkan duruuftiisa marmarka qaarkood ay adkayd iyagana abaalmarinaan siin doonaa marka tii safarkii waa ka hadlay mahad celinta haddaan ku bilaabo waxaan u mahad celinaynaa runtii hay-adihii dowladda ee nagala qayb qaatay xuska labada casho ama bandhigaas ee weliba hadiyadaha bixiyey ee qurxiyey munaasabadii aanu joognay aadka u qurxiyey aad iyo aad baanu ammaanaynaa waxaanu ammaanaynaa shirkadda Somtix iyo shirkadda Sata oo runtii Soomaaliya ay farxad u tahay in shirkado noocaas oo kale ay yeeshaan dad dhalinyaro oo aqoon-yahana oo runtii dalkooda wax kasta u huraaya inay jiraan dawlad ahaan waxay nagu kordhinaysaa energy cusub bay nagu kordhinaysaa dhalinyaro mutadawiciina 10,000 oo sawir oo wanaagsan kuwii hadda halkaan lagu soo bandhigayay ayaanu go'aansanay inaanu faafino oo social media ku faafino si ay u bedesho xogaha aan fiicnayn ee seef garaysan inaan kuwa ku bedelno ayaanu doonaynaa marka dhalinyartii mutadawiciinta shirkadaha soo kaliya aan ahayn ee sida wanaagsan oo la shaqeeyay ee magaca wanaagsan ee Soomaaliya faafinayay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu ku dadaalnay ballanqaadyada la sameeyo badnaa ilaa 250 ballanqaad ahaa in mid waliba sidiisii u fulo oo hay'adii shaqo ballanqaaday fuliso oo shirkadii private ee shaqo ballanqaaday fuliso oo ninkii tigid sameeyay yani guddi baa u xilsaaran